سعيد حاجي أحمد قلنبي يا كل قد شرف وسميه وفتقي حكومته ووهليدي لا تليها مدحوينها سوماليلان بيرتو قلنبي كنت على دولات كمقالة برعو وفتقي حكومته يا لا تليها مدحوينها سوماليلان ayaa afartii bilood la soo dhaafay ku sugnaa deegaanka Ceelfeen halkaas ay ku soo gabagabeeyeen colaadihii halkaas ka jiray maxamed warsame ayaa ugu horeyntii halkaas ka hadlay sheegayna muhiimadda loo sameeyay hadamar sharafeedkaasi waan masaraftan sameeyay Saciid Xaaji Axmed waan ku soo dhaweynaa wasiirada xukuumadda ka timi Ceelfeen ee afartii bilood fadhiyay ee ku soo guuleysatay nabadeyntii beelaha halka ku diray dhowr sano ka socday aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa waan idinku soo dhaweynaa barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Soomaaliland Saciid Sulub Maxamed la taliyaha madaxweynaha Soomaaliland Ali Maxamed Waraacade ayaa iyaguna halkaas ka soo jeediyay erayo mahadnaq ah waxa farxad gobol ahaan noo ah in maanta Saciid Xaaji Axmed halkan uu ku sameeyay casuumadan ugu walqalayo nabadeyntii afarta bilood ee dheeraadka ay wasiiradan iyo la taliyaha madaxweynuhu u joogeen Ceelfeen midada dheer ay u fadhiyeen inuu maanta markay noogu yimaadeen halkan gobol ahaan naga furto soo dhaweynta ballaaran ee gobolka loo sameyn lahaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa Saciid Xaaji Axmed iyo intii la socotay ee la sameysay casuumadan waxaan leenahay gobolka wax weyn baa u qabateen waa tii la idinku yiqiin waa milkaha lahaan jirteen waa tii Xaaji Axmed lahaan jiray aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweyntan qaaliga ah ee heer sare ah ee fardaheeda iyo qalabkeedaba wadatay burcana ku magac leedahay sameeyayna Saciid Xaaji Axmed Yuusuf Qulumbe runtii ninkaasoo aynu garanayno marka waa wax lagu farxo dawladaha maardi maxaafadba maanta waynu wada joognaa mar haddii waxa wanaagsan la isku taageerayo oo la isku hambalyeeyo Saciid Xaaji Axmed Qulumbe reer Qulumbe dhamaanba waxaan uga mahad celinaynaa soo dhaweynta fiican ee ay dareemeen anaga oo muddo maqneen inay maanta nagu soo casuumaan dhulkan quruxda badan iyo dhirta hoosteeda oo runtii dhul muxuu ahaay laga shaqeeyay ah waxa kale oo uga mahad celinaynaa Saciid aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa anigu waxaan jeclay bii'ada iyo geel iyo fardaha halkana fardo fara badan baa maanta lanaga hor keenay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa ka mahad celiyay kulankan qaran sharafeedka ahaa ee loogu sameeyay beerta Qulumbe ee duleedka magaalada Burco Saciid Xaaji Axmed Qulumbe waayo dhamaan reer Xaaji Axmed Qulumbe dadkii hore lafaha Burco aad iyo aad baa Saciid ugu mahadsan tahay akhyaarta kale halkan ugu tameeyay iyaguna nagala soo qayb galay reer Burcona aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa wax Qulumbe ka tarjumaysaa waxay ka tarjumaysaa dhulkan quruxda badan leh beertan aadka u ballaaran fardahana laga hor keenay xayawaan xoolaha kale ee halkan ku dhaqan waxay inooga tarjumaysaa nabadgelyada aynu ku noolnahay hadayna nabadgelyada haysanin sida quruxda badan la isugu nimaadnayn aad iyo aadna waan idinku mahadnaqaynaa waxaan jecelahay gidigeenba waxa qudayna wada faranay waxa weeye inaynu nabadgelyada ka washaqeyno waa Cabdirasaaq Koronto telefishinka caalamiga ee SAB magaalada Burco وارصاحب maxaad noo kicisay riyo wanaagsan baan ku riyooday shirkadii Telesom oo soo kordhisay adeeg la yiraahdo kaafiye oo aad $7 bisha oo dhan ku hadlayso kumaad riyoon ee waa run hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland tayo waa Telesom